بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا ورarkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda Jamhuuriyadda Ukraine iyo NATO oo imika si toos ah ugu soo biirtay dagaalka sheegtana inay Jamhuuriyadda Ukraine ay ka caawinayso hub badan ay sii doonto oo gacan weyn ka geysan doonto hagaajinta kaabayaasha tamarta muhiimka ah ee sida xun ugu burburay gantaalada waaweyn ee Ruushku ridayo iyo diyaaradaha aan duqeymaha lahayn ay ku duqeeyeen meelihii muhiimka tabarta u ahaa ee Jamhuuriyadda dalkaasi Ukraine. intaana ku soo gudbin qodobkaas aan ku sheegay oo intii hore ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay soo boqoto channelkan Shadi TV oo soo daaya barnaamijyo kala duwan fadlan channelka subscribe oo gambalelka taawo imkaan ku soo dhawaada qodobkaas aan sheegay oo intii hore ka sii faahfaahsan. shir madaxeedka ka dhacaya magaalada Bucharest ee hogaamiyaha guud ee isbahaysiga militariga James Stolan ayaa Moscow ku eedeeyay inay isku dayayso inay jilaalka u isticmaasho hub dagaal iyo duqeymo oo Ruushku u isticmaali doono. Jamhuuriyadda Ukraine ayaa sheegay in malaayiin reer Ukraine ay imika ku dhacday koronto la'aan iyo qabow iyo biyo la'aan daran suwarka u dhigay. Ukraine ayaa muddo bil ah weydiisanaysay ururweynaha NATO inay siiso difaaca gantaalada hawada ee hormarsan. kulan ka dhacay magaalada Berlin wasiirka cadaaladda ee kooxda G7 ee hodanka ah ayaa sheegay in ay isku dayi doonaan baaritaan ay ku sameeyaan dembiyada dagaal ee uu Ruushku ka geystay Jamhuuriyadda Ukraine. baaritaankan qarsoodiga ah ee ku guda jiro ayaa socon doona laguna baari doonaa baa la yiri sida ay warka u dhigeen gaboolfadyada uu Ruushku ka geystay Jamhuuriyadda Ukraine waanan sii wadi doonaa ayuu sheegay intii ay nagu qaadato xitaa haddii ay 10 sano nagu qaadato ayuu sheegay wasiirka cadaaladda ee G7 laakiin waan wanaajin doonaa diyaar garowga aan ugu jirno waanu sii jiri doonaa ilaa iyo inta ay ka dhamaanayso ayuu yiri wasiirka cadaaladda ee Jarmalka Markon Brain. madaxweynaha Ruushka ayaa dhankiisa sheegay Vladimir Putin oo amray in duulaan buuxa lagu qaado Jamhuuriyadda Ukraine 24 Febraayo iyo saraakiishii kale ee sarsare ee iyaguna Kremlinka ka tirsanaa ayaa beeniyay sheegashada ciidamada Ruushka in ay duqeymo iyo gaboolfadyo iyo dambiyo dagaalba ay ka geysteen Jamhuuriyadda Ukraine. dhanka kale arrintaas ka duwan ayay sheegtay talaadadii marwada koobaad ee Ukraine Olena Zelenska ayaa sheegtay sharci dejiyaasha baarlamaanka UK ee London in dadka reer Ukraine ay ku jiraan argagax la mid ah ayay sheegtay kii UK ay la kulantay dagaalkii labaad ee adduunka markii Naazigii Jarmalku uu duqeynayay malaayiin linki ah. waa sida warka u dhigtay guusho ma ahan bay tiri oo kaliya in uu u baahanay waxa kale oo aanu u baahanay cadaalad ayay tiri Master Zelenska iyadoo kale si raacisay inuu ka mid tahay cadaalad sababtoo ah waxaan helnay bay tiri waa cadaalad horseedi doonta in la soo afjaro duulaanka uu Ruushku ku hayo Jamhuuriyadda Ukraine. Master Tolina ayaa iyadoo dhankeeda ka hadashay bilowgii kulanka labada maalmood ee wasiiradda arrimaha dibadda ee NATO ee caasimadda Romania ayaa iyaduna tiri Ruushku dhab ahaantii uu ku guuldaraystay goobaha dagaalka ee Jamhuuriyadda Ukraine si uu ugu guuldaraystay bay tiri dhulkii uu ka qabtay ayay sheegtay inay dadku ay ku soo biiraan dadweynaha Ruushka iyo inay Jamhuuriyadda Ukraine ka mid noqdaan taasoo ahayd mid khasab ahayd haddana uu Ruushku uu noqday mid imika ku guuldaraystay. hadalkiisa uu ku sii celcelinayay hogaamiyaha arrimaha dibadda ee UK James Clifford ayaa sheegay in Ruushku uu damacsan yahay in uu qaboojiyo
dagaalka Ukraine si ay Ukrainiyiintu isku dhiibaan ayuu sheegay taasina imika waa mid aan dhacayn buu yiri dalkana uu burburiyay wuxuu u reebtana ma jiraan taasna caalamka oo dhan ayaa ka soo horjeeda ayuu sheegay wixii kale daawada ku soo cusbanaada muuqaaladeeda kale ayaynu iskula wadaagi doonaa fadlan channelka subscribe de oo markasta ku xirno oo daawo muuqaalada kala duwan ee halkan aan ku soo gudbiyo Soomaalida iyo caalamka iyo taariikhii hore ee gumaysigu uu ku reebay dhulka Soomaaliya nabaday